waxaa muddooyinkan dambe isa soo taraya caqabadaha dhibaatada dhinaca wadooyinka ee caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa oo aan helin dayactir muddooyin dheer TV-ga caalamiga ah ee Star ayaa u korgalay dhibaatooyinka ka jira dhinaca wadooyinka ee magaalada Hargeysa. halkani waa wadada weyn ee loo yaqaano 150ka oo dhexdeeda ay waqtigan ka buuxaan baabuur waaweyn, qashin iyo waxyaalo kale. wadadan ayaan muddooyinkii u dambeeyay wax dayactira iyo wax banayna midna aanay ku samaynin dawladda hoose ee caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. jidkan imika idiin muuqda waa wadada ka soo baxda xaafadda Goljanno ee magaalada Hargeysa oo u gudubta xaafadda 150ka. dhiskeeda waxaa wadawaday oo hore u ballan qaaday dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa iyo wasiirre hore iskaga casilay xukuumadda Soomaaliland. waa mid aan dib loo soo eegin isla markaana aan wax dambe laga qabanin. hase ahaatee dadweynaha xaafadaasi xawaadle ee ay wadadaasi dhex marto ayaa iyagu ogolaaday in meel kasta oo ay wadadaasi ku hagaagto, hadday tahay deyr iyo hadday tahay guriba, in la banneeyo si ay mar uun u helaan wadda ay kaga nastaan rafka iyo dhibaato la'aanta dhinaca wadada. hase ahaatee dadkaasi iyo wadadaasi cid dib ugu soo noqotay ayaan jirin. goobaha kale ee TV-ga caalamiga ah ee Star uu booqday ee dhibaatooyinka dhinaca wadooyinka ah ayaa iyaguna waxa ka mid ahaa dhinaca galbeed wadada weyn ee halbowlaha u ah ee isku xidha gobolada galbeedka ee Soomaaliland iyo caasimadda Hargeysa. daawadayaal, halkani waa buurta kala jeexan oo ay wadadu noqotay salli yar oo qof ku fadhiisan karo. hase ahaatee gawaadhida waaweyn ee xamuulka, kuwa yaryar iyo nooc kastoo halkaasi maraya aanay helayn meel ay isku dhaafaan iyo meel ay kala maraan toona. qaar ka mid ah dadweynaha halkaasi TV-ga caalamiga ah Star uu kula kulmay ee dhinaca darawaliinta baabuurta galbeedka u baxda iyo dadka kale ee deegaanadaasi ayaa Star TV uga warramaya dhibaatada dhinaca wadada ee galbeedka. waxaanay sheegeen waa wadadii halbowlaha ahayd ee isku xidhisay gobolada galbeedka iyo bariga Soomaaliland. waa wadada kaliya ee in mudnaanta la siiyo u baahan. marka waxaan ugu baaqayaa golaha deegaanka iyo cid kasta oo wadooyinka ku shaqo leh in si degdeg ah loo dayactiro, haddii kale way baaba'aysaa. gawaari badan baa imika isku jeedha waa idinka arko boorka ka duulaya. marka waxa weeyaan in golaha deegaanku ay aad xoogga u saaraan ayaan doonaynaa. golaha deegaanku waxaan odhan karaa ku fashilmeen hawshii loo dirtay, way ku fashilmeen. weliba dhallinyaradan saxadda ka dileen oo inaan dhallinyaro dambe la doonayn bay la tahay. waxaan aad iyo aad u ammaanaya guddoomiyaha maxkamadda sare dhallinyarada ah. golaha deegaanku dhaliil weyn baan u soo jeedinaynaa. kama muuqdaan caasimadii, kama muuqdaan wadooyinkii, kama muuqdaan. waxaan leeyahay fadhiga kaca oo dadaala. allayla keliya waxay ka muuqdaan cashuurtay qaadaan iyo iyagoo qurux badan, wax kale kama muuqdaan. laakiin wallaahi dhibaato aad iyo aad u fara badan bay ku haysaa population-ka. cid aliyaaliya cid wadada waru hayso oo aad mas'uul bay ka tahayna ma jirto. dawladda hoose haddii ay tahayna cashuurta un bay taqaanaa moogta oo aad ay ugu dadaashaa inay tiraahdo cashuurta keena, cashuurta soo bixiya. laakiin wadadii dhinta guud ahayd ee halbowlaha magaalada ahayd oo baabaa wax aliyaaliya hay war uga haysaa ma jirto maanta. haddii aanu nahay anagu darawaliinta ama gaadiidleyda, dhibaato aad iyo aad u fara badan ayaa naga haysata. mushkilad baa meesha taalla moogta. dee waxaa aad iyo aad kolley u wanaagsan in aad loo eego wadadaasi halbowlaha moogta, maadaama ay tahay dhuntii magaalada. wadadaasi wadada ku barkaana weey kolley magaalada ama caasimadda Soomaaliland ama jamhuuriyadda Soomaaliland. wallaahi aad iyo aad baan dhaliil fara badan ayaan u soo jeedinaynaa dawladda hoose. waxaanu leenahay ha lagu dadaalo wadooyinka halbowlaha ah inta ay kolley ku dhex meeraysanayso magaalada ama wadooyin yar oo aan kolley midna godka naga soo baray midna godka naga soo baarayo buurta kala jeexan. buurta inay dhibta meesha taalo wax dawladda hoose ya dawladda ka dhibaatanaysa sanada ilaa meel wad baxaysa ilaa 4 sano baxay. intee lag wadada mareysay? waxaan mariyay ilaa imiga 7 sano. 7 sano saasan ku marinay iyo imse gaadha kaga jabay iyo godadka tagaariga afraad maraya ya wadada nagu maran. wax madaxweyne waxaan weydiinayaa ila waxaan naga codsanaa inaad wadada naga sameysaan. aad iyo aad bay nagu dhamaatay. weli hoos looma eeg dadweynaha hoos loo eegaan iyo dawladduba in hoos loo eego loo soo jeedsado ayaan aad uga codsanaa.
goobtan aanu taagannahay aa aragtaan waa goob ka mida waddadii weyneed ee halbowlaha dalka ee isku xidhaysay gobollada badankooda waa aragtaan siday u tahay liid yaroo dhuuban oo aad sijeed moodo oo aan laba baabuur isku dhaafi karayn ma idin qaban dadaalkiinna muujiya oo ummadda wax tusa dalkiina waa kaasi wax u qabta intii laydiin doortay waxay inaad dalka wax u qabataa haddaba arrintu si kastaba ha ahaatee dhibaatooyinka dhinaca waddooyinka ee caasimadda Hargeysa ayaa inta badan waxaa ummadda Somalilan uga mas'uula wixii caasimadda gudaheeda dawladda hoose caasimadda Hargeysa iyo waliba sidoo kale hay'adda waddooyinka ee horumarinta dhinaca waddooyinka Somalilan hase ahaatee kala xadeynta loo soo saaray waqtigan TV-ga caalamiga ah Star ayaa mar walba u kurgala sidii wax uga ogaan lahaa xaaladda dhabta ah ee Somaliland gaar ahaan caasimadda Somaliland ee Hargeysa haday tahay dhinaca wadooyinka haday tahay dhinaca bilicda haday tahay wax qabadka dhinaca xashiishka ee ay loogu xil saaran yihiin golaha deegaanka caasimadda Somaliland ee Hargeysa halkan waa buurta kala jeexan dhinaca iyaga waxa yaala qalabkii ugu badnaa ee waqtigan ay keentay dawladda hoose hase ahaatee wax alla wax ka taraya wadada ma jirto halka ugu daran ayaa ah goobta qalabka ee loo yaqaan buurta kala jeexan Umar Ali iyo Mustafa Aadan Tahar TV-ga caalamiga Star magaalada Hargeysa.